السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ardayda ku xiran koorsada maartay network essentialka waan idin salaamayaa sida quruxda badan maartay aad uga qayb qaadanaysaan daraasadan ku saabsan basiga network-ga oo qof kasto oo uu anfacayo IT-ga ku jira saaxadda IT-ga even hatta haddii aad tahay qof developer jecel inuu developer noqdo waxaad u baahan tahay inaad network-ga aad barato waayo waxa lagu shaqeyn doono waa isaga network-ga waxa uu maartay qof kastaba oo IT-gan ku jira waa inuu barto marka haddii aad tahay marka qof rajeynaya inuu network maartay developer network maartay engineer uu noqdo markaas maartay aad iyo aad buu ku caawinaysaa asaasiyaad maartay aad iyo aad u qurux badan weeye okay cashiro hore ordhac baan soo qaadanay oo maanta waa maalinteeni afraad ee koorsado cashiradu hore aan u soo qaadanay sida caadiga ah jaamacadda qofka markuu dhiganayo macalinka wuxuu bixiyaa quiz ayuu bixiyaa cashirka jabtarku marka laga gudbo si maartay dib loogu eego ardayga fahamkiisii jabtarkii la soo dhaafay ama cutubkii la soo dhaafay marka anigu waxaan kugula talin lahaa haddii aad tahay arday jaamacadeed IT baranayo waxaan kula talin lahaa in toddobaad waliba wixii aad soo aroosatay maartay cilmi ah in aad su'aalo iyo jawaabo ka samayso oo aad adigu xifdiso ee aad daawacato dabeeto waxay ka caawinaysaa inaad maartay kaalinta koowaad inaad gasho imtixaan waliba ee jaamacaddu ay qaado ku saabsan daraasadaada IT-ga marka anigu sidaasaan samayn jiray kaalinta koowaadna weligay kamaanu bixin ilaa jaamacadda iga dhamaatay marka waxaan ku rajeynayaa inaad fahamto yacni muhiimadda ay leedahay in cashirka toddobaadka aad soo qaadato waa haddii aad tahay qof raba inuu kaalinta koowaad galo mar waliba kaalinta koowaad aanu ka bixin oo cilmiga maskaxiyan conceptna uu haysto oo ardayda intuu soo hor istaago macalinka markuu maqan yahay ka buuxin kara xiisada okay what type of meeshan waxaa kaaga muuqda check your understanding waxaad hubinaysaa fahamkaagii network typeska jabtarkii aynu soo qaadanay what type of network ayaa noocee network allows ayaa ku ogolaanaya you adiga meeshan you baa ku xadfaneyd waa laga tagay allows you ayaa ku ogolaanaya computers allows your computers computeradaada u ogolaanaya in home office maartay guriga xafiiska ku yaala or ama office ama remote office ama xafiiskaaga shirkadda ee aad ku xirtay network maartay corporate network maartay markaas la wadaagayo oo shiraaka ah okay small home office miya jawaabta adaa laga rabaa small office home office network miya adaa laga rabaa jawaabta medium to large networks miya adaa laga rabaa jawaabta worldwide networks miya adaa laga rabaa jawaabta horaan u soo aragnay marka qofka doonayana waan u soo dirayaa slide-yadan oo maartay network ku saabsan anigu website ma lihi waa qurux badnaan lahayd inaan halkaas daraasada ku diyaariyo laakiin waynu gaari doonaa marka what can be placed in or package so that it can be tracked marka su'aashan iyaduna sidaas bay u dhacaysaa yani maxaa la yiraahdaa waxaan aad arkayso maartay selectiska ayaa laga rabaa inaad kaga xulato jawaabtoodu waa laba su'aalood oo kaliya marka data transmission oo cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay ayaynu gudagali doonaa data transmission refers to waxaa loo tixraacaa movement dhaqdhaqaaqa of data xog in a form hub of bitskana way soo aragnay waa binary digits ama binary code bit waa smallest information waa shayga ugu yar informationka waa waxa ugu yar information keediya information lagu dira between u dhaxeeya marka labo or ama more digital devices aalado korontada ku shaqeynaya digital wixii waa wixii koronto ku shaqeeya electric deviceska marka types of waxay leedahay marka types of data transmission yani qaybaha uu kala baxo data transmissionka waxa uu kala baxaa laba qayb parallel iyo wuxuu kala baxaa iyo serial
serialka waxaa kasii maaragtay tarmaya synchronous waxa la yiraahdo iyo synchronous waxa la yiraahdo ayaa kasii baxay. marka types of personal data maxay tahay? We hear waynu maqalnaa about wax ku saabsan data all the time, waqti kasta. data qof dhahay data ii soo dir, qof dhahay data rabaa, maaragtay qof dhahay data iga ciladaysan, waynu aragnaa. customer data waxa la yiraahdaa jira, personal data waxa la yiraahdaa jira, healthy data waxa la yiraahdaa jira, census data waxa la yiraahdaa jira. Okay, but laakiinse what exactly is data? maxay tahay xogtu iyadu? iyadoo sawir ah. marka waxaad ka fikirtaa yani think about all of the data. xogtu yani maaragtay jirta ee adiga kugu saabsan ee aduu magacaaga iyo wixii markaas laga diiwaan geliyo personal data Facebook ku qorto waa taas oo kala la mid ah. marka physical way marka way soo muuqanaysaa. marka some examples tusaalooyinka qaar waxaa ka mid ah birth recordskaaga sida baasaboorkaaga markii aad xogta laga qorayo iyo wixii la mid ah, iyo baby pictureska ilmaha sawirada laga qaado iyo markiska iskuulka aad ka keentay iyo wixii maartay labka uu ku soo saaro oo healthy recordska markuu ku soo saaro labka. marka waxaan oo dhan network ku xiran yihiin waayo waxaan markii lagu soo saaray waa in la helo physical device oo network ah sida printer in la helo. daatada marka waxa ku soo turjumaysa printerka ku soo turjumayo ku soo saaray iyadoo physical ah. marka isla network un baa lagu dhex jiraa. marka most people dadka badankooda iyo soo isticmaalaan network to transmit inay ku gudbiyaan their data xogtooda in order to share si ay u wadaagaan with others kuwa kale si ay ula wadaagaan, or for long term storage ama in muddo loo keydiyo oo uu keydiyo maaragtay systemka inuu ayaga systemka muddo uu keydiyo. every time mar walba you hit aad taawato sendi aalada aad isticmaalayso WhatsApp ama wax kale or ama share aad dhahdo in an app yani app gudihiisa or ama computer application wuxuu yahayba you are telling waxaad u sheegaysaa your device aaladaada waxaad u sheegaysaa to send inay dirto your data xogtaada to waxay u diraysaa markay destination of somewhere wax u dhacayo si yani xawaaro leh oo aanay bini aadamku xisaabi karinin ayay u dhacaan. marka markii aad wax soo dirayso maaragtay destinationkaagu wuxuu arkayaa kaliya fariinteeda adiga aad dirtay, laakiin waxa idin dhaxeeyo intermediary device oo network ah ayaa idin dhaxeeyo oo idin kala turjumayo. marka waxa kale oo kamid ah marka examples waxa kamid ah oo datada when you set up automatic backup oo kale markii yani synchronization markuu sameynayo telefonkaaga ama sync waxa la yiraahdo synchronization waxa la yiraahdo uu sameynayo wuxuu ku kaydinayaa yani automatic backup oo ah wixii telefonka ku jiray ayuu ku kaydinayaa sida sawiro sida telephone numberadii ayuu ku kaydinayaa sida maartay dokumentiyada iyo waxyaabahaas oo kale. or ama when goorta your device aaladaada automatically search si automatic u raadinayso yani inay waafi. okay yani set up automatic backup kan bal aynu aragno computerada way leeyihiin. computerkan isla tageynaa backup kan computer walba uu leeyahay. computerkaaga hadii markaas aad ka baqayso inay xog ka lunto yani waa inaad backup samaysataa, meel backup waa inaad samaysataa. waxa update baa idagay waa sidaas oo ku culus yahay. marka okay waa soo kacaya.
يعني لاجن كان waxaa keenayo computerka inuu sidan culays u noqdo oo laagin noqdo waxaa keenayo yani window yani update hore ee ku jiray ee la bedelay ayaa computerka xayirayo oo ku jira marka aniga imikan iska dileedaya marka adiguna maaragtay qaabka loo sameeyo oo loo dileedayna waa muuqaal baan ka duwaya marka laginka waxaa sababayo ama drive update u baahan inuu computerkaaga uu ku jiro processkiisa performancegiisa uu saas u culus yahay marka wax cilad maaragtay oo hardware hadii aanay ku haysanin A+ ayaa lagu bartaa yani maxaa la yiraahdaa koorsadan intaanad qaadanin A+ soo baro wax cilad markaasi oo hadii aanay ku haysanin oo ku saabsan hardware waa inaad device manager-kaaga tagto waa cilad software hadii ay tahay halkaas ayaad ku ogaanaysaa troubleshoot samee laakiin halkan waa weligay backup kuma aanu sameyn computerkan marka waa uu soo kicinaya kulay ashirkeenan ku laabanayna marka noocyada ay u kala baxaan marka the personal data waa voluntary data iyo observed data iyo inferred data marka voluntary data marka this created waa la abuuraa unexplicitly yani iyadoo maaragtay maxaa la yiraahdaa yani kala qaybsan ayaa waxaa lala wadaagayaa dad kale sida maaragtay social network profiles-kaaga LinkedIn-ka waanu aragnaa xogta aynu dhigno WhatsApp-ka Facebook-ka kulli waxyaabaha aynu ku qorqorno iyo muuqaalada aynu gelino iyo waxyaabahaas ayaa la yiraahdaa voluntary data okay observed data iyaduna waxay la mid tahay waxyaabaha adiga laga record gareeyo ee shakhsiyadaada ku saabsan kaas oo maaragtay markii seminar iyo waxyaabahaas aad soo qaadanaysid yani maxaa la yiraahdaa lagu record gareynayo xogtaadu lagu record gareynayo marka waana markaad isticmaalaysid yani cell phones-kaaga ama location-ka adigu markaasi aad degan tahay ayay tilmaamaysaa waa in GPS-ka waanu soo sheegnay global positioning system-kaas waxaa ku jirta xogta address-ka ayaa ku jirta ee qofka guriga uu degan yahay ayaa ku jirta macnaha hadii qofka aanu yani telephone number-kiisa aanu xogtiisa lagu qorin ee lagu diiwaan gelinin server-ka laga diiwaan gelinin mala awoodi karto backup aynu sameeyno backup halkaas uu kaaga muuqda wuxuu ku leeyahay flash computer-ka ku jira documentiyada computer-ka ku jira folderada wixii la mid ah ayaynu hadda ku backup gareynaynaa waxaynu ku protect gareynaynaa OneDrive kan waxaa iska leh Google ayaa iska leh marka halkan markaad ku dhufato waxaa ku soo baxayo OneDrive-kaaga marka waynu aragnaa hadda sida shaashada inoo muuqato backup-ka auto backup marka computer-ka lagu sameynayo wixii computer-ka ku jiray lagu kaydinayo marka even hadii computer-kaaga uu ka halaabo ama window-gaasi uu maartay uu ka fail garowo ama crash iyo waxyaabo ay ku dhacaan ama lag uu noqdo yani window kale aad ku shubto hadhow isla backup-kii email-kii aad ka kicisay ayaad gelinaysaa xogtana isaga ayaa ku keenaya marka anu hadda wax backup mali sidaad ka arkayso wuxuu leeyahay geli backup marka waxaad iibsanaysaa waa storage baa iibsanaysaa storage-kaas oo ku saamaxaya inaad yani backup aad samayso oo ku saamaxaya marka xitaa Windows 7 wixii ku jiri jiray ayaad markaasi soo ceshan kartaa oo way hore wixii ahaa ayaa soo ceshan kartaa marka halkan wuxuu ka soo furayaa driveski inta drive wixii no usable drive is found lama helin sababtoo ah anigu malihi wax open drive malihi oo yani OneDrive wali ma aan furanin waa Google-ka storage baa aad ka iibsanaysaa waa sida maartay hard disk drive oo virtual storage ayaa la yiraahdaa isaga ayaa ku kaydinaya marka wixii macluumaad ah waad iibsanaysaa email-kaaga iyo waxyaabahaas baad gelinaysaa waa sida caadiga ah telefonkaagu marka kaas ayaa waxa la yiraahdaa auto backup ayaa la yiraahdaa okay bid ayaynu baranaynaa waa daatada yani xogta ugu yar ee data ah xogta ugu yar waa shayga wax ka dhiga data value wax u yeela ma ogtahay marka in computerada iyo network uu ku shaqeeyo waxa la yiraahdo binary digits sidaan soo aragnay
كواس أو كون zeros ones أي كون يهين it can be difficult way adagtahay to imagine أما to imagine أما إن لا ما أعرف قياسه that all of our the personal data that all of our personal data يعني إن يعني حكت data ذا نذا إن محلي رهداي كمبيوتر كجرتا is stored إلا كيدية and transmitted إلا جدبية as serious bits يعني تحنيال أو مارتي نمبرة مركا موقال أو مارتي أنت سو جي بي ككون نمبر ملقو حسابي كرا وبليونز تريليونز أو مارتي أو ديجيتال كود واي maaduu markaa maskaxdaadu ma keeni kartaa waa adagtaa inay maskaxdaadu qiyaas sidaas darteed marka computerka way qiyaasaysaa maskaxdiisa uuna ku soo bandhigayaa xogti marka each bit kasta can only have wuxuu haysan karaa two possible values laba qiimo oo macquul gal ah ayuu haysan karaa kuwaas oo loo garan og yahay 0 iyo 1 ayaa loo garan og yahay the term ereyga bit loo yaqaano marka waxa laga soo gaabiyay binary digits ayaa laga soo gaabiyay wuxuu soo bandhigayaa marka hadii lagu yiraahdo what is bit hadii lagu yiraahdo is the smallest information of data ayaa leedahay marka muxuu qabtaa hadii lagu dhaho represents wuxuu soo bandhigaa the smallest piece gobolka ugu yar of data ee xog humans marka bini aadamku interpret waxay turjumaan words ereyada and pictures iyo sawirada computeradu interpret waxay turjumaan only buttons of bits يعني نمبرادان isku lamaanan kan iyo kan way isku lamaanayeen 0 iyo 1 way isku lamaanayeen 0 iyo 1 kale 0 iyo 1 kale 0 iyo 1 kale sidaas ayay isugu lamaanayeen lambarada marka buttonska waa kuwaasa marka of bits sidaan ay isugu lamaanayeen waa on iyo off oo kale marka a bit marka is stored waa la keediyaa and transmitted waa la gudbiyaa as one of two discrete states laba marxaladood oo ah in 0 ama 0 iyo 1 uu yahay midkood ayaa loo maartay keediyaa soo ma garanin ayaa loo keediyaa marka wax walba markaas input ay computerka soo galayo wuxuu aqrinayo waa 0 loogu sameeyaa computerkaaga auto backup waa taan soo sheegnay xogta markii computerka la soo geliyo CPU-ga wuxuu sameynayaa يعني in a form of waxa horta xogta marka la soo geliyo as a binary digits ayay maartay CPU-ga uu xogta u garan karaa laakiin ma garan karo muuqaal iyo waxay yihiin ma kala garan karo kadib storing ay wuxuu ku sameynayaa processing uu process gareynayaa wuxuu ka soo saarayaa يعني wax bini aadamku ay fahmi karaan ayuu ka soo saarayaa wuuna u kaydinayaa marka waa qayb kamid ah marka cashirkeeni maanta data backup computerka sida loogu sameeyo waana muhiim inaad computerkaaga backup ku sameyso si ay maartay maxaa la yiraahdaa yani marka sida halkan kaaga muuqata waxaan yani computerkeena dhexdiisa aynu ka sameeynay backup aynu ka sameeynay kaas oo noo ogolaanaya in maartay wax walba ee desktopka saaran ee markaas desktopka aynu soo gelino in yani noo sii kaydinayo haddii aan gudaha u galno waxaan ku jirnaa micnuhu ma ahan qaybtan waa virtual storage keenan ku jirnaa ma ahan local storage ka computerka ma aha marka virtual storage keenan ku jirnaa haddii aan gudaha u galno waxaynu arkaynaa wixii saarnaa desktopka oo laynoo kaydinayo ayaynu arkaynaa halkan waa wixii gudaha igu jiray aniga hadhow marka waxaan ma iga dhumayaan haddii maartay inta ka baxaan localka haddii ay ka baxaan ma iga dhumayaan laakiin hadda halkan waad aragtaa haddii aan tago kan iska wada xiro kan haddii aan iska xiro desktopka waa kana aan imid sidaas si lamid ahna halkan xogtii baa taala OneDrive-ka computer kasta leh computerkaaga isku day marka inaad u sameyso backup kaasna inaad u kiciso isku day wuxuu kaydinayaa marka sida caadiga ah wuxuu kaydinayaa sawirada iyo waxyaabahaas ayuu kaydiyaa iyo folderada iyo xogtaada ayuu kaydinayaa arkayna
computerkeena backup inuu leeyahay sideen ku garan karnaa calaamadahan aad arkaysa x ka saaran waa yani iska cancel haddii aan dooneynin calaamad hadda waxaynu soo aragnay async iyo sync inuu sameynayo macnaha syncin ayuu sameynayaa maxaa la yiraahdaa wuxuu raadinayaa xogtaadii si uu u keydiyo uu raadinaya uu baarbaaraya calaamada synkiga ayaanu arki doonaa oo saaran folderada qaarkood waxa culays ka dhigaya backup buu hayaa ama inuu ka baxno halkan aan tagno sida halkaas kaaga muuqata desktop-kan joognaa yani calaamada synkiga ee ku muuqata waxay tilmaamaysaa in uu kaydinayo xogta ku jirta folderkan computerka inuu qaybtiisa virtual storage-ka uu ku kaydinayo waa kana calaamadahan idin muuqda waxay muujinayaan in computerkaaga backup uu ku xiran yahay marka backup-kan haddii uu ka maqan yahay calaamadahan ma arkaysid macnaha folderka yani xogta taala qaybta magacyadoodu statuska nooca ay xaaladda ay ku sugan yihiin ma kuwa la kaydinayaa sida halkan kaaga muuqata sync pending yani weli lama kaydinin laakiin hawshiya weli socota waqtigii oo maartay maxaa la yiraahdaa ay bilaawatay in yani la soo geliyo xogta halkan nooca ay tahay iyo size-ka cabirkeeda oo ah megabyte-ka iyo bytes-ka waxa la yiraahdo waynu arki doonaa bytes-ka iyadana waynu sharaxi doonaa cashirkeena halkan ayuu maanta nooga egyahay intaynu dib kaga kulmi doono cashirkeena maalinteena afaraad ama maalinteena shanaad waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo